gurbaday dadkeennii biga waa ka gaabilay ahiriyaad haraad baa ku dilay gabanadeeniye madaxweyne deegaankan abaar baa ku dhacday aad iyo aad u baahsan abaartii dadka iyo tii duunyaduba way hayaan biyaha aan maanta la soo gaadhnay dadkii joogay waxayna yidhaahdeen maxaanu ku karsannaa runtii waana wax jira weeyaan taas anagu ka deegaan ahaan wixii taalkaya waanu ka soo jawaabnay se muhiimaddu waxay tahay wixii maamulada haddii ay tahay maamulka gabiley iyo xukuumadda dhexaba inay soo gaadhaan ummadda dadkaa ka soo jawaabay wax soo tarayna ilaahay subxana wataala miisaadka xasaadka ugu daro inteenna kalena hadday noqoto bulshada hadday noqoto dadweynaha hadday noqoto dowladda maantii waxaan ugu baaqinaa inay ka soo qayb galaan oo dadka deegaanka ka soo jeeda labada xildhibaan oo musharaxiinka golaha deegaanka iyo ka wakiilada ay ugu horeeyaan iyo dad kale oo muxsiniina ayaa ka soo jawaabay 32 booyadood ee biyaha halkani waa deegaanka ciidanka deeriyaanka ee ka tirsan gobolka Gabiley waxaana dadka deegaanku ay soo gaarsiiyeen 32 booyadood oo loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen ku dhaqan deegaanka ciidanka deeriyaanka ee gobolka Gabiley baaq hore uga soo yeeray dadka deegaanka sidoo kale xildhibaan Cali iyo qaar ka mid dadka deegaanka ayaa hore ugu baaqay in xaalad abaareed ay ka jirto halkan waxaana baaqaasi ka soo jawaabay dadka deegaanka ay hogaaminayaan musharaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka sidoo kale xildhibaan Cali oo ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Gabiley sidoo kale waxa halkaas ku sugnaa istuyaasha wasaaradaha ciyaaraha iyo sidoo kale kalluumaysiga waxaana xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale gudida abaarahaba ay ugu baaqeen inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan bulshada ku dhaqan deegaanka ciidanka deeriyaanka ee gobolka Gabiley calaf dad iyo calaf xoolaad midina sanadka ma hayaan biyihii baa iyaguna ugu sii daran halkan dhalinyar baa maalin dhaweyd soo martay dalabkii waxaa ka soo jawaabay dad muxsiniin oo ehlu khayra odayaal dadka deegaanka ah Cabdilaahi Taani Sayd Cali iyo maaragtay ninka la yiraahdo Cadaan Xaaji Muuse dad ay ugu horeeyaan xildhibaanka ayaa si dhaqso ah uga soo jawaabay marka waxay heleen biyo yar oo ma il 30 booyadooda deegaankuna uu dheer yahay halka wuxuu ka gaaraa ilaa geed balaad halkaana wuxuu ka gaaraa maaragtay Kalabayd buu ku dhawaadaa deegaanka inta leeg baan 30 booyadood baa ayaa 32 booyadood baa la helay dawladda oo waliba waxaan leeyahay dhaqsaha looga soo gaaro lala soo qayb galo dadkani biyo iyo baad wixii la heli karo lala soo gaaro waliba Gabiley bara saabka iyo maayir haday noqoto iyo dadka loo helo khayr haday noqotoba si dhaqsaha looga soo jawaabo dadka dhibaataysan baaqoodaasi halkan waxa hore u jirtay in xildhibaanku baaq abaareed uu ka jeediyay mar hore halkan yimiday abaar daran oo deegaanka ka jirta baaqii xildhibaanku halkan ka jeediyay waxa la helay jawaab ama garanaysaa 32 booyadood oo biyaha oo dadka deegaanka ka soo jeeda labada xildhibaan oo musharaxiinka golaha deegaanka iyo ka wakiilada ay ugu horeeyaan iyo dad kale oo muxsiniina ayaa ka soo jawaabay 32 booyadood ee biyaha waxaan kaloo baaq u raacinaa xukuumadda iyo guddiga abaaraha hay'adaha caalamiga cid alla cidii ay qusaysa xaaladda abaareedka jawaabisteedu waxaan doonaynaa inay si degdeg ah uga soo jawaabaan waxaan u mahadnaqayaa muslimiintii inay soo ajarsatay ilaahay jirtu ugu soo ajarsatay tolkood barna waxaan mahadnaqayaa xildhibaanada taagan iyo kuwa soo socdaba oo ka howlgala hawsha waxaan leeyahay ilaahay baarta mahadlay in aadamku isku tashadaa fiican waxa wanaagsan inay booydan lagu soo tara ceel hal noo qodo ayaa lu taaganahay oo baaqaan diraya uu yahay ceel hal noo qodo dhulka biyo waa leeyahay in ceel noo qodo ayaa doonayay dawladda Sifriin soo marto ay u qodo ceel ilaahay waxaan baranaynaa inuu yahay abaaraha naga soo jabiyo mar labaad kana xukuumadda wada jiriyo xaqabada waxaan u sheeganaa waxay dadku xaq u lahaayeen in lala soo gaaro daybaha caafimaad tahay daybaha abaareed tahay cabashadii aan fidinay ee abaarta laba jirka ee nagu dhacday ee guriga naga kala qaxay wixii kici waayay uu joogo baaqii biyihii u horreeyey wayna soo gaadhay waxaa naga soo gaarsiiyey muslimiinta iyo meesha u dhammaanay ayay naga soo gaadhay halkaa wuxuu ka gaadhaa geed balaadh jihada galbeedka wuxuu ku dhawaadaa Wajaale jihada waqooyina wuxuu ku dhow yahay Kalabayd deegaanka waxa ka timi qayladhaantaas oo ahayd biyo la'aan iyo baad la'aan annagoo ah dadkii deegaanka ka soo jeeday
deegaankana aanu ahayn mid cabashada la qabatimay oon weligii caban oo isku tashi bulsho wax ku dhista hadday tahay xanaanada MCH-ka caafimaadka iyo iskuulkaba isku tashi ku dhistay hase ahaatee maanta waxa yimid wax awoodoodii ka badan taas anagu ka deegaan ahaan wixii taalkaya waanu ka soo jawaabnay muhiimaddu waxay tahay wixii maamulada hadday ay tahay maamulka Gabiley iyo xukuumadda dhexaba inay soo gaaraan ummadda waxay ugu talagaleen la soo gaaraan insha Allah bidmillah. waxaan mahad celinaynaa dadka muxsiniinta walaalihiina ee baaqa loo diray ka soo jawaabay dadka waxa uu khayr badan nabigeena wuxuu sallallahu alayhi wasallam calayhi qofka waxa uu khayr badan dadka uu intifaac badan leh bulshada baahidooda in laga qayb galo oo wax loo taro oo la anfaco waxyaalaha khayrka badan lagu heliyo nabigeena wuxuu sallallahu alayhi wasallam calayhi masaajidka nabigeena i'tikaafo buu rasuulku yiri oo khayrkiisu badan yahay salaadiis ajirkiisu badan tahay waxa ka khayr badan qof muslina oo baahidiisa iyo dantiisa kala shaqeyso taas dhamaantii waxaan isku boorinaynaa dadka ka soo jawaabay wax soo tarayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasaadka ugu daro inteena kalena haday noqoto bulshada haday noqoto dadweynaha haday noqoto dawladda haday noqoto shacbiga dhamaantii waxaan ugu baaqinaa inay ka soo qayb galaan dhibaatada dadka haysta kala qayb galaan wax tar haday noqoto iyo anfac haday noqoto deegaanka iranka deeriyahanka oo ay ka jirto abaar baahsan oo dad iyo dunyaba saameysay dadkii waxay u kala qaxeen afarta jaho waxaan baaq kala dawladda oo leeyahay dadkan deegaanka waxa ka jira abaar baahsan oo dadkii deegaanka aad u saameysay waxaanu ka rajaynaynaa inay ka soo jawaabaan baaqii ugu horeeyay waxa ka soo jawaabay xildhibaanada golaha deegaanka iyo golaha wakiilada muxsiniinta ka soo jeeda deegaankan waxaan ku sugannahay deegaanka iranka ee gobolka Gabiley oo runtii maalmo ka hor laga soo jeediyay qayladaan abaareed oo runtii aanu maanta hordhicii koobaad ee isku tashi deegaan aanu ku gaarsiinay biyo dhaamis runtii xaaladda halkan waa xaalad adag dadkana waxay u baahan yihiin in baad iyo biyaba la soo gaadho dadka badankoodii way ka guureen waxa ku hadhay waxa weeyaan dadkii carruurtii iyo maatidii runtii waxa weeyaan waa waxyaabihii la iskaga gargaari jiray ama la isku garab geli jiray waa biyo dhaamin hordhaca oo dadka deegaanka ururis ay ku keeneen runtii cid kasta oo keentay aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa dadyago kale halkan dhageysan doonana waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay idinkii ay soo gaarsiin doonaan deeqa hordhaca runtii marka koowaad ilaahay baan u mahadnaqaynaa waxaan u ducaynaynaa in ilaahay baa wax dhargiya raxmadiisa iyo roobkiisa iyo nimcadiisa oo qurux badan inuu ilaahay u shubo waan u ducaynaynaa marka koowaad marka labaadna baaq waxaan u diranaa abaareed in cid kasta gaar ahaan guddiga heer qaran ee abaaruhu inay deegaankan yimaadaan soo eegaan gacan ka geystaan maanta waxaynu joognaa deegaanka iranka deeriyahanka sidaynu hore u sheegnay baaq baynu halkan ka jeedinay inagoo ka hadlayna abaaraha ka jira deegaankan abaarahanoo aad iyo aad u baahsan oo runtii waxa weeye laga warramay baaqii aynu jeedinay waxaa ka soo jawaabay dad muxsiniina oo deegaankan u dhashay oo ay ku jiraan murashaxiinta iyo dad muxsiniina oo jooga waddanka Jabuuti waxaanay soo gaarsiiyeen deeq biyo ah oo ka kooban 2 booyadood dadka waxaan leeyahay dadkoogii soo tabay waa tabayna fiican oo aad soo tawdeen dadkiinii ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar iyo wanaag iyo khayr idinka siiyo miisaanka xasanaadkana Allah idinku daro waayo nabigeenu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam irhamu fil ardi yarhamkum man fis samaa arlada iskaga naxariista samada la idinka naxariisano ilaahay ba samada idinka naxariisan naxariistaasan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynaynaa inta marka laga yimaado abaartani sidii aynu hore u sheegnay waatu aan deegaankan hore u soo marin deegaankani sidaynu hore u tilmaanay waa deegaamada wuxuu ku jiraa hodanka ayuu ku jiri jiray oo uu yahay oo waxa weeyaan dad iyo duunyo waxa weeyaan lagu baxo oo lagu soo xisaabtamo ayuu ahaa deegaankani runtii dadka deganna dad inta badan qaylo iyo buuq looga bartay maaha waa dad waxa weeye inta badan degan oo wixii ilaahay siiya ku kalsoon waxaan u soo jeedinaynaa dadkan deegaanka waxaan u soo jeedinaynaa
in waxa weeyaan ilaahay loo noqdo subxaanahu wa tacaala gacanta ilaahay baa waxa weeyaan wax walba kaafido cid walba kaafida ilaahay baan baryaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala samada inooga soo naxariisto madaxweyne deegaankan abaar baa ku dhacday aad iyo aad u baahsan sidaa aan sheegnayna cid maanta matasha oo codkooga ku hadasha oo xukuumadda dhexe ku jirtaa ma jirto madaxweyne qallinkaagu wuu hagraday sida runta ah waxaan kuu soo jeedinaynaa madaxweyne oon cod dheer kuugu sheegaynaa hadduu qallinkaagii maanta hagraday oo deegaamada la mida ee waxa weeye gobolka ka tirsan siduu qallinkaagu u qabtay uu maanta u qaban waayey waan rajaynaynaa berriba wuu qaban doonaa laakiin hagrashadaa waxa weeyaan uu qallinkaaga tirsaday hagrasho labaadoo waxa weeyaan waxqabad la'aan ah ugu darina waxaan soo jeedinayaa baaq ayaan xukuumadda uu madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi uu garhwadeenka ka yahay u soo jeedinayaa oon leeyahay deegaankani maanta gurmad degdega abaartii dadka iyo tii duunyaduba way hayaan biyaha aan maanta la soo gaadhnay dadkii joogay waxayna yidhaahdeen maxaannu ku karsannaa runtii waana wax jira weeyaan biyaha waad noo keenteen laakiin wixii lagu karsan lahaa ayaa la doonayaa bay yidhaahdeen waxaan u soo jeedinayaa oon baaqa waxa weeyaan baaq u dirayaa sidaa aan sheegay xukuumadda oo madaxweynuhu kow ka yahay madaxweyne cid kaloon la hadlaanu maanta ma garanayo aday dadkani ku doorteen adaa waxa weeyaan dadkan maanta madaxweyne u ah aduu ilaahay kaala xisaabtamaya waxaan soo jeedinayaa marka koowaad iyo marka labaad madaxweyne waxa weeyaan dadkani waxay u baahan yihiin gurmad degdega ilaahay baa gurmadka bixiye gurmadkii bili'aadanku isku gurman jiray bay u baahan yihiin intaa waxaan ku darayaa waxa weeye guddiga abaaraha iyo sidaan horeba u sheegay hay-adaha waxaan leenahay dadkani halkii maanta wax la yskaga qaban lahaayee wax la yskaga tari lahaa bay taagan tahay maanta sida runta ah waxaan soo jeedinayaa deegaankaasoo hagrasho fara badan tirsanaya oo waxa weeye sidaa aynu sheegnay waxa weeye hagrasho fara badan tirsanaya waxaan leeyahay maanta waxa weeyaan ha la soo gaadho oo gurmadkaa abaaraha lala soo gaadho ha laga soo gaadho ilaahayna subxaanahu wa tacaala hayna waafajiya khayrka dembigeennana allaha dhaafo waar ilaahayna u noqdo oo dembi dhaaf ilaahay weydiista ilaahay baa deeqda bixiya oo cadiyadda bixiye ilaahayna aanu noqonno aad iyo aad baad mahadsan